فرحان شلو برسول تي في انتي أدنى كلام الغريب وقتها غالي عن سياسي فرحان منهم كمية وش الصومالي هذا بلون بعض كلاس أوتو حتى في تافلين كان بصدير هذه بصديرنا واحد كان في مجالين بشو والكور بشوين الصوماليين markii muqdisho basdiir aad keentay sida ay u soo dhaweeyeen iyo sida ay u arkeen bismillaah horta ugu horeeyno Fersal TV waa ku dhawahay aad baa u mahadsantihiin haddaan u gudo galo soo dhaweyntii basdiir hadee run ahaantii si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay bulsho fara badan baa soo dhaweysay awalna bulshadu iyaga codsaday inaan keeno markaan leeyahay iyaga bulshada codsaday waxaan ula jeedaa waxa la meeshii qabiilo nin ka joogo waa joogan meeshii laba ka joogtana waa wada joogan ugu yaraan page-ga waxa ku xiran 600 iyo samti marka hadii ay bulshada Soomaaliyeed ay intaasi codsadeen in la keeno basdiir Soomaaliya ka hor markii uu codsaday in la geeyo Soomaaliya dhaqaalaha laga saaciyo intaasi waxay ku codsadeen inaan dalka keeno marka intaas Soomaali bay matalaysay laba qof baa Soomaali matali kartay iska daa 600 kun marka rabitaankoodii iyo codsigoodii baan dalka awalna ku keenay haddana ay ku soo dhaweeyeen bulshada Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin basdiir ma qofka saameynta leh ee waa farxaan iyo hadallada u dhahay adigu farxaan oo luqadda Soomaaliyeed fiican tahay oo ninkan hadallada u dhahay ayaa turjuntaa mase marka aad fiiriso ninka ficilka uu sameeynayo ayaad hadal u raadisaayo saasad ku sameeysaa filimada muqaalada kuwa oranayo luqadda Soomaaliga waan wada aqaana laakiin qayb kamida waan garanaya sidaas oo ay tahay basdiir hadalkiisa iyo muuqaalkiisu meesha ku wajahnaa midna kuma soo gudbiyaan riwaayad gaar aan ka sameeyaa film gaar aan ka sameeyaa ki anigu markaa aan israahdo waad ka dhigaysaa baan u ekaysiya dadka Soomaaliyeed waxay ugu dhaliilayaan basdiir ما أعلم واحد من الشباب الصوماليين أي كفايديس مركا الكورن ليش أسلوب شيء ده هيقولين الجو قف كله أو سامين لحياة ضد واحد من أي كفايد لهاي إنه كانوا وقت ياسي خرج كاسي الحكة سكيلة يوم يوصل أنت سكور هذا بالشدة الصوماليين هرب أنا الشيء شلي مركي أو عوضي ونكان كعوضي دقالة حقيسة intii taageerisay basdiir muuqaaladiisa ku xirnayd waxay u badnaayeen kuwa yiraahdo waranigeed iyo waranigeedku la kala laaray hadaa ninka ka jeebroone ninka wadankii keen marka rabitaan ay iyagu codsadeen iyo rabitaan ay iyagu rabeen baan ku keenay wadanka mana oranayo anigu waxaas maxaa looga faa'iidi waayay iyo maxaa laga faa'iidayaa midna oran mayo sababtu waxa weeye basdiir ninku yahay Soomaalidu way ogay waa nin komandiyana muuqaalo soo gudbiya ha jiraan hadeer dad yiraahdo ninkaasi waxba laga faa'iidayo oo ma garan karo anigu bulshada meel wax ugu soo gudbin karo oo asaga gaar ahaan wax uga faa'iideyn karo maadaama muuqaaladiisu ay yihiin kuwa anigu aan isticmaalo oo Soomaali aan ka dhigo aadna ay runtii ugu xiran yihiin oo uga heleen marka hadda basdiir si waa loo dhaliili karaa waa qof caana وانا لا تاغير كرايو تاغير بدن بولay arintii farxana waxa kale oo sida badan ay isweydiinayaan baa waxay tahay marka basdiir la waxa khasaba in la arko idil iyo asr waxa la farxana basdiir waa keenay idil iyo asr sababta uga soo tagay bal maxay tahay isweydiinayaan bulshada waxa ka dhigay idil iyo asr sababta looga soo tagay waa mid aniga iga soo gooday basdiir safar buu ahaa martib buu ahaa go'aan uu ku soo kaxeeyay iyo awood dhaqaale uu ku soo kaxeeyo oo ku kabi karo isagu ma lahayn laakiin iyagu waxay rabeen sida uu isagu u raba inay u soo baxaan aniga se waxaan u baajiyay oo hawshaas aan u fulin waayay marka kaliya dadkani way naga dhaqan duwan yihiin oo ma garanaysaa Soomaaliya iyo Tansaaniya dhaqankeeda waxba u dhaxeeya حتى xilliga muuqaalka ay duubanayaan iyagu ha joogtay marka aniga ay ila soo hadlayaan oo ma garanaysaa ama basdiir ha soo sagootiyeen ama iyagu muuqaal aniga ay maaragtaa khaas ah maadaama dad wada shaqeyn naga dhaxaysa aan hay soo diraan oo ma garanaysaa muuqaalo hambaliya ama wax kala dabcan xilligaas oo kale
waxa khasaba oo aan ku khasbaa in ma garanaysaa ay xijaabka ama maryaha baatiga ay xijaabka laga dhigto oo dhaqanka Soomaaliyeed matalaya inaan maaragtaa u xiro marka xogaa joob bay dareemayaan hadii ayagoo halka jooga aan xijaab maalin walba u galiyo inaan halkaan inta keeno amaan walba xijaabkooda iyo hawshooda dumar weeye waxyaabo badan u baahan karaan ma garanaysaa wax dhibaato badan ka iman karta waxyaabo badan baa ka iman karta marka waxaan ku khasbanaaday in cid kaliya oo la keeni karo wadanka ay noqon karto basadiir oo isagu uu fudud yahay basadiir way farxan waxa jira muuqaala ay soo qaadanayeen dadka YouTube-da ama dadka bulshada aad ku isticmaala kuwaas oo ay ka muuqdeen si aad dhaqan xumo ninkan soo khamri cabahayo oo kale aduna waxa tahay farxan ninka wadanka ninka keeno kul arintaas maxaa ka jira maxaa kale arinta waa kala qaadaya dhowr qodob baan u kala qaadayaa oo qodob waxaan kula hadli doonaa warbaahinta ama wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo YouTuber-ka midna waxaan kula hadli doonaa kaga hadli doonaa muuqaalkaas iyo aniga Soomaaliya inta uu basadiir joogo waxa uu ka gudbiyo oo muuqaal khaldan ah mas'uuliyadeeda iyo khaladkeeda horta in aniga la saaro waajib aan u leeyahay mana diidin laakiin waxaan rabaa in wax la kala hubiyo muuqaalkaasi ay bulshada ogaadaan inuu yahay mid bil ka hor ama 2 bilood ka hor inta uu wadankiisa joogay aniga basadiir inta uu Soomaaliya joogo muuqaal uu ku duubo oo iyo meel uu fursad u helay iska daayay marka aan rabo in aan magaalo u saarno mas'uuliyadda iga saaran isaga inaan gaari baruuf ku qaado oo ku geeyo magaalada oo ciidanka haysta ma saaro sababtu waxa weeye qofkan isagu saameyn kasta ku lahaada dalkiisa waxba igaba garin laakiin markan aanu marti yahay ummadda Soomaaliyeedna marti uu yahay marka meesha aan geynayo sida darteed waxaan hadalka ula jeedaa meesha aan geynayo waa meel la hubo 100% inaysan maaragta awsan waxba ku sameyn karin hadalka nuxurkiisu waxa weeye ninkan mas'uuliyad soo dhamaan gacanta ku haya muuqaal khaldan iska daaya hal sawir oo khaldan ma gali karo dalkana kaba gudbin karo Soomaaliya waxaan u sheegay inaysan club ku ool waxaan u sheegay inaan laga ogolayn khamri in lagu isticmaalo wal dad Soomaaliyeed oo isticmaalo way jiraan laakiin anigu waxaan inta u diidayaa maadaama aanu nin dhalinyaraayo iska ma garanaysaa mas'uuliyad weyn saaran tahay oo arrimahaas oo kale ay isaga xogaa ay ku noqon karaan ma garanaysaa dhaawac intuu ninka aniga ila joogo Soomaaliya hotelkiisaas ku jiraya xilligii uu meel u baahdo dalxiis waa loo kaxaynaya kadibna dalkiisii baa loo diraya ma ogoliya hal kaliya oo Soomaaliya oo meel xitaa dhiiqa yara taala inuu ka duubo oo uu diro aniguna ma aqbalayo hadii aan aqbalana de waxa noqonaya khaa'in wadan baa leeyahay qofkaas kale yaani qof wadankiisii khiyaamay baa noqonaya midna waxaan leeyahay waxa ii hartay iga raali ahwadi midna waxa ii hartay wariyaasha Soomaaliyeed baa leeyahay wariyaashu waxay soo qaateen runtii muuqaalkii basadiir oo isagu horay isaga difaacay inuu wadanka ku isticmaalin oo dalkiisa ku duubay dabcan muuqaalkaasi in badan bay يعني جيسب دhinacyo badan oo ka dhaliileen muuqaalkaasna waa kaga hadleen basadiir waa la dhaliil karaa waa caan anigana waa la dhaliil karaa mas'uuliyadda dalka qofka keenay anigu ahaa mas'uuliyad baan ku qaadaya hadduu wax khaldan dalka ka sameeyo mas'uuliyaddeeda ana la saaraya oo khaladkeeda iska leh marka wariyaasha waxaan leeyahay dhalinyaratiin aniguna nin dhalinyara baan ahay wadankana waynu wada leenahay مسؤوليتيسuna way ina wada saaranta warbaahinta wariyaasha dhan la hadlamayo rag isku jiree rag gaar ah way rag soo qaatay macnaha inta soo qaadatay baan la hadlaya inta soo qaadatay waxaan leeyahay dalka waa wada leenahay mas'uuliyadiisuna waa ina wada saarantahay aniguna waa in kaga lex jecla badna way u badan tahay inaan kaga lex jecla badnahay sababtoo waxa weeye wali Soomaaliya kaba bixnaan inaan hadii aan ka tagay xitaa magaalada weyn geelay baan ahay oo golaha geelayga inaan aadam ma ahane meel kale ma aado marka waxaan leeyahay wariyaasha waxaan leeyahay YouTuberada Soomaaliyeed dhaliishaas wixii yani khaldama oo dalkeena khalad ku socda inaad ka hadashaan xaq baad u leedahay dhanka kale markii loo eegana hadee shaqadiinaaba oo yani inaad wax ka hadashaan oo barnaamij soo gudbisaan
baa rabtaan dad baa idinku xiran waa shaqadiinii baa ku xiran marka taas idinku dhaliili mayo laakiin waxa idin leeyahay dalka waynu wada leenahay waynu wada ilaashanaynaa waa idinkaga lex jecla badnahay waliba idinku waxa laga yaabaa qaarkood inay ka maqan yihiin wadanka anu wali YouTuber wadanka joogo ka hadlaya ma arag inta ka hadasho in ka maqan marka waxaan leeyahay wadanka waa idinkaga lex jecla badnahay aniguna wali waa ku sugnahay oo kama bixin ama xabad ha ka dhacdo ama qarax ha ka dhaco wali waan joogaa ama asta farxan xaraan ku weydiiyo waxa tahay in la yiraahdo abwaan dadku muuqaalada asuulid aad u shaaxtira badan intii aad basadin muuqaaladiisa waxaan samaha boonaan lahayn in adigu muuqaalo adiga laftikaaga ama dad kale oo Soomaaliya ama dhalinyaro kale oo Soomaaliya inaad sameysaan intii aad mid kale oo ajaanibi ku tirsan lahayd muuqaaladiisa anigu horta ugu horeyn kuma tiirsanay warbixin yar baan ku siinayaa anigu kuma tiirsanay YouTube-ka nin dhalinyaro ganacsada baan ahay meelo badan yani ka shaqeeya marka YouTube-ka kuma tiirsanay sidaa darteed waxay noqonaysaa muuqaalada ninka ajaanibka aniga kuma tiirsanay muuqaalada aan sameeyo inta hadda ka hor waxaan isqabanay Basadiir aniga Basadiir waa isqabanay wuxuu xiray ma garanaysaa muuqaaladii yani straight bu saaray kadib waanu ka heshiinay taas laakiin intaanan heshiin baan dadka Soomaaliyeed kala hadlay waxaan idhi warninkii isaga ahaayo muuqaalada ugu horeyn ay idinka soo duubi jiray cod baan idin soo saaray nin ajaanib muuqaaladiis iyo gabdho idil iyo asr iyo alaaba aan ula baxnay magacyo qaangaar aad baad uga hesheen runtii haddaad ka hesheenna runtii waad i taageerteen bulshada Soomaaliyeed aad bay i taageereen muuqaaladii iyo codkii markii la isku daray wixii dhaqan Soomaaliyeed laga dhigay aad iyo aad bay i taageereen runtii waan uga mahad celinayaa 100% isqabashada iyadii kadib aniga iyo Basadiir waxaan ku iri ninkii waa isqabanay marka haday suuragal tahay halkan waxa idinku soo gudbin doonaa muuqaalo anigu aan leeyahay ayagu aniga ixtiraamaya oo bulshada runtii ugu xiran aad baan ugu mahad celinayaa waa dad 100% aad i taageera xitaa marka meelaha qaar laga yaabo in qof wax boosti si khaldan uga soo hadlo runtii siday uga jawaabaan ama uga falceliyaan ma halkan waxaan ku soo koobi karaa ma aan difaacoodo marka maalinkaas waxay bulshadu go'aansadeen inay aniga i taageeraan oo wax walba aan keenay ninkaan bashalay adigaana baray maantana waxa weeye hadii aad isqabateen dhib male adaan ku sugaynay bal wax noo soo tabi way jiraan dhowr muuqaalo aan soo sameeyay kadib ninkii heshiiskiisii baan u soo gudbiyay sidii way soo dhaweeyay سلامي سيدي وكله أسود وين إلا هذا نسيدي بأن قوتنا وشغلي كسعتها وأنا نتاجر سيء. ودمينتي محل هذا يدك كوحرا الصوماليين عادية بصداير تاجر الله. برشة الصوماليين وحن ليه هاي أرتهرنتي عادي عاد بنو جمهد علينا إني ماركتها بوجج كوحرين يوتيوب فيسبوك all سفي عنا يسبات كريان ويتاجران. وحن أرى لها شلي Basadiir idinka ay yiri dalka keen oo qori xaram leeyahay ninka wuxuu diro dagaalaha ka bixiyo dalka keen waa keenay waa saaciday waan ka bixiyay dalkii baan keenay maantana qaar idin kamid ah waxay leeyihiin ninkii dalka laga saaro marka bal dhinac aan u wada hagaagno waxa weeye anigu idinka wax idinku ahay bal hal dhinac hal jiho aynu u wada hagaagno hadii alla idmo Basadiirna mar walba isagu baxaya inaga isku harayna Basadiir mar walba baxaya dalkiisiiba aadaya ummadeena Soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahaa xitaa hadda khalad kuba u kicin Basadiir laakiin hadduu khaladkaas kala dalka sameyn lahaa intaas oo dhan inaan lagu xadgudbeen baan jeclaan lahaa sababtu waxa weeyaan dad dalkeena uu burburay markuu burburayna ummadeena waxay kala aadeen qurbaha meel kasta ee qaxootiga ku yihiin waa joogan Tansaaniya waa dhooban yihiin walwalka ugu badan reer Tansaaniya qaba maanta hadii Basadiir wax gaaraan walwalka ugu badan shacabka Tansaaniya oo jooga ma garanaysaa shacabka Tansaaniya jooga Soomaaliyeed baa qaba marka waxaan rabnaa waxyaabaha cunsuriyada inaan iska ilaalino maadaama ninkan intuu wadankiisa joogo wadankeena uu joogo oo inaga marti inoo yahay martiduna de xeer gaar ay leedahay hidiye dhaqan baynu lahayno in geela la dhaxgeeyo gaawo caana loo keeno codka ay xiran oo iga raali ahaado maanta iska hargabsanahay marka
okay ama Mustafa